qiso mubki ah oo qofkii dhageysta wallahi uu ooyayo ayaa waxaa ka sheekeeyay wiil Sacuudi ah oo dhalinyaro ah wuxuu wiilkaas leeyahay wiil aad u fiican caafimaad qaba asagoo ah oo maalin suuq dhex maraya ayuu wuxuu arkay gabadh aad u qurux badan oo niqaaban oo meesha maraysa waxaan dabcay inaan gabadha faduuliyo ka daba orday wuu la hadlay meel dukaanahay gashay markaa wuxuu dhaafay oo soo fiiriyay bagacanteeda saas tiri waa calaamad cadaynaysa inay rabto markaasaan istaagay meel baan isku leexiyay way ii timid markaasay tiri wuu yiri telefoonkaaga isii telefoonkiiba isiis yaan siiyay habeen barkii bay soo wacday وقصان dhageysta waa waxa inta badan hadda dhalinyarada ka dhaxdhaca wixii markay soo wacday gabadhu waa isbaranay maalmaha sheekaysanay waa isjeclaanay waxa ii sheegtay inay tahay gabar garoob ah inay tahay ii sheegtay waan wuxuu yiri waan is aragnay makhaayadaan soo raacanay waxay igu tirbi lacag baan leeyahay qof lacag leeyahay oo dumar ah business woman ah laakiin lacag baan leeyahay wuxuu waa gabadh aad u dhowrsan makhaayad baan wada tanaan wada cashayna inaan saa u taabto ma ogola wuxuu yiri muddo markaan joognay waxa isku day jiray inaan taabto wax ku sameeyo way diiday muddo markaan joognay ayay maalinta waxay tiri buu yiri niyo waxaan rabaa inaan si degdeg ay igu timaadin ana ordayaan tagay makhaayad kaasay tiri buu yiri waxaan rabaa inaad taad tigid baan ku siinaya tigid bay siisay tigidkan qaado qaahira aad Sacuudiga jooga business baa ii imaanaya shirkad noocaas alaab ii keenaysa hotelka noocaas deg marka degtay telefoonkaas wac marka qofkay ka qabto waxaad u dhahdaa alaabtaas aan rabay heblaaya masuul aan ka ahay waraaqna way ii saxiixday buu yiri inaan masuul ka ahay waa farxay gabadhi maanta waxay ku dirsatay shaqadii uu fasax ka qaatay waa la ii diiday fasaxi waan la dagaalamay ninkii booska ahaa markii dambe uu tagay wuxuu markaan qaahiro tagay hotel aad u qurxoon baan tagay telefoonkii markaan wacay gabadhii baa iga qabatay wax yar ka qolka igu xigay digantahay say tiri surprise ما أربي إن أكون شيء أنا ماشان كوبا لنصدق قل كيف يقول تمد قبل ما أرقب سيدي قف دمر ولا أروسيا قبل يقول نيكي لصيحدي وحودها مركو هذا يا ليتني هدانا تيجي كقاعدان الحين ما يقول تنقارت محان تلفون كهمين كأدري هو جاي وديجري ويلك محا هوتيل كاباس إدتشي قبل مركو أسبوع للجوجي صدق البروي أستي اكتشف بتيجي أصلا يصير أيوة صار نهضي ويلك أصلا ويل فرح سن اسمه أوجا أيام متكدب walaalkii iyo asagoo baabuur la socda baa shil galay accident galay zinadu wali waxa baarsan oo kama toobad keenin shilkii markay galeen ayaa walaalkii baa si aad u dhaawacmay isbitaalka markii la geeyay buu yiri ayaa walaalkii oo dhiig baxaya la yiri dhiig u shub dhiigii baa laga qaaday muddo kadib ay dhaqaatiirta i yimaadeen waxay dhaheen buu yiri iska ilow dhiigaaga walaalkii miyuu dhintay subhanallah dhiigayga ba isoo celiyeen bi walaalkii miyuu dhintay salim maya maxaa dhacay may AIDS bal qabtaa wiilkii meeshii ku suuxay wuu dhacay waligii ma soo malayneen laakiin ilaahay ma moogeen oo wuxuu sameeyay marka isqurxinaysid iscarfinaysid telefoonada diraysid daahiyada xiranaysid allah ku moog waa raqiib atiid ma ku mooga wiilkii asagoo la falafan noqday wuxuu usbuuc kadib gabadhii soo wacday markaasay tiribu yiri saatahay markaasay iribu yiri dib baa igu dhacay walaalkeena wuu dhintay markaasay tiribu yiri inaan ku arkaan rabaa markaasay ku ma kuma arkay maxaa dhacay maya inaan ku arkaan iribu walaalii jiradaas la igu sheegay markaasay intay qosashay waxay tiribu yiri waxa tahay qofkii ugu horeeyay waxaana ballan u qaaday rag badan oo adoo kala inaan sax ku sameeyo goodbye telefoonkiina way ku damis